بسم الله الرحمن الرحيم gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho oo ka jawaabaya cabashada ay ganacsatada iyo bulshada caasimada maalmahan ka qabeen diidmada adeegsiga lacagta shilin Soomaaliga ah ayaa maanta oo ay taariikhdu tahay 15 Abriil 2026 waxa uu kulan degdeg ah la qaatay qaybaha kala duwan ee ganacsatada oo ay ka mid yihiin sariflayaasha tafaariiqleyda qudaarleyda hiliblayda gaadiidleyda dadweynaha BLka iyo wakiilo ka socda rugta ganacsiga ee heer gobol iyo heer qaran kulanka ayaa warbixin loogu dhageystay qaybaha kala duwan ee ganacsatada oo ka hadlay sida ay u saameysay dhibaatada ka dhalatay diidmada shilin Soomaaliga waxaana kulanka lagu lafaguray sababaha dhabta ah ee ka dambeysay arintan iyo sida ay lama huraanka u tahay in xal dhaqsi ah loo gaaro gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa ganacsatada Soomaaliyeed u cadeeyay inaysan marnaba suurtagal ahayn in la diido adeegsiga lacagta shilin Soomaaliga ah wuxuuna tilmaamay in lacagaha maxalliga ay qayb ka yihiin tiirarka jiritaanka iyo halbowlaha dhaqdhaqaaqa dhaqan-dhaqaale ee ummadda taasi oo ilaalinteedu ay tahay waajib iyo mas'uuliyad ay dastuuri ah iyo damiirkaba nafarayo sidaas daraadeed gudoomiyaha wuxuu amar buuxda ku bixiyay in canshuuraha maxalliga ee la qaaday dawladda hoose ee qaado lagu qaado lacagta shilin Soomaaliga ah sidoo kalena sariflayaasha ay aqbalaan inay sarifaan lacagta shilin Soomaaliga ah cidii diidana ay tahay qof galay dambi gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Dr. Xasan Maxamed Xuseen Mungabo tixgelinaya duruufaha gaarka ah ay ku shaqeeyaan ganacsatada gobolka Banaadir ayaa wuxuu ku baaqayaa in si degdeg ah loo joojiyo diidmada lacagta shilin Soomaaliga isagoona ballan qaaday in maamulka gobolka Banaadir iyo dawladda Sheekh Xamar ay kaalin mug leh ay ka geysan doonaan fududeynta dadaalada lagu taageerayo ganacsatada looguna jawaabayo tabashooyinka gaarka ay qabaan dhankooda ganacsatada gobolka Banaadir ayaa ka mahadnaqay kulanka duqa magaalada oo ka turjumaya sida uu maamulka gobolka Banaadir u danaynayo xal u helida caqabadaha la soo gudboonaaday bulshada waxayna sheegeen inay ka xun yihiin dhibaatada ay bulshada kala kulantay culayska ka yimid diidmada shilin Soomaaliga ugu dambeyn maamulka gobolka Banaadir iyo ganacsatada waxay isku raaceen in la xoojiyo adeegsiga shilin Soomaaliga iyadoo loo turayo danyarta lana tixgelinayo danaha guud ee bulshada iyo kobaca dhaqaale ee magaalada Muqdisho maasanidin